السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن أو نكسن لما صاحبة كحرن جلك داعة تيوب ولا الهدي أي تهي مركي كوجوري سؤال صوب وقت الشانل كان وحنا كعصنا إنا سبسكرايب صارتو مقال كان الله يجريسو وعد كوسو دواتان مقال عصب وإنه كجهل الدرنو قصة عشي بعد حمرتين جبر يريو هذا قصدنا وحي كوبلاون ساسدة على المعلمة كمده أيا جبر كو يتوانجير أبهذا ويديسي aabo markaan gaaro 15 jir waxaad hadiyad ahaan dhalashadeeda ii siin doontaa. Aabihii ayaa ku jawaabay, aabo wali waqti baa inoo dhiman, markii la gaaro ayaan arki doonaa. Gabartii markay ku dhowdahay dhalashadeeda ayaa nasiib darro xanuun ku soo booday oo lala cararay isbitaal. waxaana laga sheegay in wadnaheeda uu shaqadii gaabiyay oo loo baahan yahay in wadno kale loo bedelo haddii rajo laga qabo nolosheeda. gabartii yareed oo isbitaalka joogta ayaa aabaheeda weydiisay, miyaan dhimanayaa aabe? Aabihii ayaa ugu jawaabay isagoo ilmeynaya, maya waad caafimaadaysaa aabow insha Allah. gabartii ayaa tiri, ma hubtaa aabo? Aabihii oo wajiga ka dadbanaya gabartiisa ayaa ku yiri, haa aabo waan hubaa. muddo kadib gabartii way caafimaaday. maalintii dhalashadeeda 15aad ay ahayd ayaa isbitaalkii laga soo saaray. markay xaafadda timidna waxay ugu timid warqad kor saarneed miiska qolkeeda, waxaana ku qornaa sida tan: gabartaydii qaaliga ahayd, markaad akhrisid warqadan waxay la micno tahay sidaan horey kugu sheegay oo ahayd in aad noolaanaysid. maalin waxaad i weydiisay hadiyad aan ku siin doono marka dhalashadaadu 15aad la gaaro, laakiin aniga ma garanaynin waxaan ku siin doono waqtigaas, laakiin hadda hadiyadan ku siiyey waana wadnahayga. wadnaha gabarta caafimaadkeeda lagu badbaadiyey waxa ugu deeqay oo hadiyad ahaan u siiyey aabaheeda, oo wadnihiisa ayaa loogu bedelay wadnaheeda, wuxuuna u horay noloshiisa si ay u noolaato gabartiisa. allow waalidkeena u naxariiso adduunyo iyo aakhiraba. intaasi ay inoogu eg tahay warbixintii ayna idinku talagalay muuqaalkiisa xiga inta aan ku kulmi doono. waxaan idin leeyahay sidaas iyo macna Allah. hana ka iloowina channelkan inaad saartaan subscribe, gambaleelkana aad furtaan, like-tana aad inagu dhiirigelisaan, muuqaalkana aad asxaabtiina la wadaagtaan. sidoo kale wixii fikrad aad inoo haysana aad inoogu reebto dhanka hoose ee commentiga.